dadka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa bilaabay inay iskaa wax u qabsay wax kaga qabtaan xarun halkaasi ku taala xaruntaas oo hooyada iyo dhallaanka iyadoona halkaasi ay u kaceen shaqaalaha caafimaadka ee halkaasi jooga iyo dadka magaalada xaruntan ayaa waxay tahay mid ay u baahan tahay inay hesho deyr iyo 2 qol kuwaas oo iyagu haatan dadku ay bilaabeen inay iskood u dhistaan deyr ay kaga ilaashadaan dhibaatooyinka xaruntaasi soo gaari kara haweenka dhalinyarada iyo odayaasha ayaa sheegay inay u baahan yihiin in lagala qayb qaato sidii xaruntan hooyada iyo dhallaanka ay u dhamaystirmi lahayd dadka deegaanka u dhashay ayay iyagana ugu baaqeenaya cid kasta oo samaha jecel inay kala qayb qaadato sidii loo dhisi lahaa dhismaan ayaa wuxuu ka kooban yahay 3 qol waxayna sheegeen inay doonayaan in 2 qol loogu kordhiyo deyrkana lala dhamaystiro dadka deegaanka ayaa iyagu waxay si weyn ay isugu qoreen lacago sidii loo dhisi lahaa xilliga aan booqday ayaa waxay sheegeen shaqaalaha dhismahan dhisayay inay wax lacag aysan ku qaadanaynin ay doonayaan inay dhisaan si ay meeshan u noqoto meel si weyn ugu adeegta hooyada iyo dhallaanka oo baahi fara badan u qabta guud ahaanba dadka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool kana darkasan waa MCH Tukaraqeed wuxuu ka kooban yahay 3 qol oo aan lahayn wax deyra iyo wax delivery iyo wax biyo ah toona marka hadarta waxaan sameeynay dadka deegaanka ku nool iyo dadka MCH ka shaqaalaha MCH ku inaan iska wax u qabsoono oo aanu deyrka bilowno ilaa injineerinta nala joogto oo shaqada haysa ay ku shaqaynayaan iska wax u qabso deyrka inta aad aragtaan hadeerta joogo waxa gaarsiinay iska wax u qabso inaanu ku dhisano marka waxaanu idinka codsananaa dadka mandaqadan u dhashay iyo dadka samaha jecel inay naga soo taakuleeyaan dhamaystirkiisa iyo haday noo awoodaan 2 qol inay noogu daraan MCH ka shaqaalaha jooga oo shaqaale u tababaran oo qualify oo aqoon ku filan leh laakiin se dhibta taagan waxay tahay waxa aysan lahayn dadkii meel ay dadkii ugu shaqeeyaan iyo adeegii oo aan dhamaystirayn deegaankan aad arkaysan aad buu u ballaaran yahay wuxuu leeyahay dooxooyin aan laga guurin oo reer guuraa aan lahayn oo dadku ay iska degan yihiin mar walba joogan kaasoo adeega caafimaadka looga soo doonto meesha tan tuulooyin hoos yimaada baa jira oo adeega caafimaadka aanu siino oo halkan yimaada waxa jirta hooyooyin marka ay fooshaan laga soo qaado miyada oo aan halka kan lagu manage gareyn karin wayde malaha qol dhalmo oo waxba aan loogu qaban karin aan ugu shaqeyno guriyaha marka shaqada guri ku qabanaysidna runtii carqalad fara badan baa kala kulmasa marka MCH kiyo adeegiyo wax walba ku yaalnaa shaqada ku qabanaysid markaasay ku fududahay marka bulshadeynta u dhalatay mandaqadan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan ku codsanaynaa inay deyrkana noo dhamaystiraan 2 qolna noogu daraan hadda wax qarash ah haysan ma jirto gabiyahan may MCH ka wax qarash aan u hayno ama cid nagu caawisay oo qarash nagu siisay ama noo bilowday ma jirto waxaan anagu urursanay ama anagu ku talagalay oo niyeysanay inaanu ku dhisano MCH ka baan ku bilownay inta aad arkaysid hadeerto baanaga itaalka yagi gaarsiiyay magaalada iyo dadkii joogay iyo shaqaalihii markii aan isku tagnay dadka intaas gaarsiiyay baan nahay wax kale oo maanta aanu hayno oo MCH ka aanu ku sii kordhino ama aanu wax kale ugu sii qabano ma jirto waxaan oo yaala soo laro waxaan oo yaala dhalooyin dadaya wuxuu wax ka soo gelayaan waqtiga dhisay marka maanta waxaad ii sheegtay inaydan wax lacag ah u haynin aad shaqaalaha uma hayno maanta waxaan ku dhisanaa voluntary baan ku dhisanaa marka lacagina meel uma taalo kor maxaad ugu baaqaysaa dadka ku daawanaya iyo guud ahaan dadka gobolka Sool iyo dadka deegaanka Tukaraq u dhashay maadaama boqolaal qof ay dunida dacaladeeda joogaan wixii wax na taraya waan u baahnaynay in nala kabaan wax naga qabtaan aad baan ugu hambalyeynay wax nala qabanaya marka maxaad ku qiimaysay bay kula meesha lacagteeda inta kaliya hadda aanu dhisnay qudha ayaa adigu marka meesha qiimeynteeda oo dhan ilaa 4,000 5,000 marka ilaa 4,000 ilaa 5,000 baad u baahantahay si deyrkii MCH ka loogu sameeyo hadii idanka Ilaahay ka dhigo waxaan joognaa goobtan waxay MCH ki deegaanka Tukaraqeed
وذكرتان اسمها كالصعدة الشغلة اللي قبلنا هيو وحن وحوي ووح iska xilsaareen dadka deegaanka markay u muuqatay baahiya laga maarmaanka caafimaadka ay dadkaas waxay isu xilsaareen maadaama hooyadood iyo walaashood u baahan tahay meel laga umuriyo ilaa caafimaadku waxa way aasaaskii nolosha inay u sameystaan meel dayra iyo guryo inta heli karaan cid ku taakuleysana ma jirto waxa way iska wax u qabso anagoo uga jeedna wax qabso hal ugu la qabtay marka hore baan anagu wax muujino si hadhow cidii doonaysa arrimaha bulshada xagga caafimaadka ee waxa la wixii tari karaan dadka deegaanka ugu saacidaan intaas leenahay hadda waxaan leenahay cid alla cidii arrinta ka geysanaysa waxaan leenahay ahla wasahlan waan soo dhaweynaa ka diiniyanka iyo xagga bini'aadamnimada waa arrimaha qaaliga ah waayo waa asaaskii nolosha weey ilaahayna wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحال اسكو عاوسان سمفلك يا لكن حماة يدن بسالتها اسكو عاونين مركا سدا خيارتي igu horeysay ay soo sheegeen in bulshada u dhalatay deegaanka baahida ay arkaan u muuqata ay ka jawaabaan oo waxtar ka geystaan waan ku soo dhaweynayaa waana mudan yihiin Dikariin nolol magaalada Laascaanood